الرحيم. وحان سلامة يا شعب وينها بنتلان قالها وحان سلامة يا اسمنا بنتلان دليرada haweenka madaxda xildhibaanada iyo in alla ay intii danaynayso arrimaha Puntland waxaan rabay caawa inaan idin la wadaago mashruucii Tuurdibi meeshuu ku dambeeyay iyo wixii dhacay aniga waxaan ahaa buddigihii mashruucaas waxaan ka shaqeynayay muddo 3 sano iyo 9 bilood ah dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waa ay ogtahay dowladda Puntland inteeda badan waa ay ogtahay isimo badan oo reer Puntland waa ay ogyihiin way ka warhayaan waxa dhacay xaqiiqdii iyo meesha uu ku dambeeyay mashruuca inaan idin sheegan rabay nimankii mashruuca oo dhaxaadka u ahaa waa ay joogaan dhankii dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Puntland nimankii xog ogaalka ahaa oo siday wax u dhaceen iyo la socday lacagihii ganacsatada Puntland laga aruuriyay oo loogu talagalay in mashruuca furidiisa dardar lagu galiyana waa ay joogaan waxaa ka mid ah rugtii ganacsiga ee Puntland ay lahayd nimankii madaxda ka ahaa nimankii registerka ka ahaa oo rugta ganacsiga ka tirsanaa iyo ganacsatada dhammaan reer Puntland oo dhan mashruucaas dowladda Itoobiya waa ay soo ogolaatay dowlad deegaanka waa ay ogolaatay wasiirkii ganacsiga ee dowlad deegaanka Qadar Cabdi Ismaaciil Taar waa uu ogyahay way ogolaadeen nimankii customka federaalka iyo tii dowlad deegaankaba way ogolaadeen ninka mashruuca dibandaabyada u dhigay oo dowladda Itoobiya ku yiri ilaa doorashada inta dambe la gaarayo si aan ugu soo baxo aniga hakiya oo lugooyada ku keenay ganacsatada iyo dadkii daneynayay dry-portiga Tuurdibi waa ninka hadda madaxweynaha Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxa igu kalifay caawo in aan hadlana wax kala maaha markaan habeen hore arkay asagoo leh waa isa soo sharaxaya oo waxaan rabaa mar labaad inaan xil Puntland ka qabto xilkii u sareeyo madaxweynenimada waxaan sheegayaa oo aan cadeynayaa masiirka ummadda iyo nabadgelyada iyo horumarka iyo ganacsiga Puntland intaba nin lid ku awaay nin diidan waayo horumarka Puntland waxaanan taas daliil u ah dokumentigii waa kana horteyda yaala dowladda federaalka Itoobiyana waa laga heli karaa dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiyana waa laga heli karaa haddii loo baahdo mashruucaas waa la ogolaaday Tuurdibi sidaa la socotaan customkii waa dhisan yahay xafiisyadii milishiibiyada waa dhisan tahay xafiisyadii booliiska waa dhisan yihiin meelihii kafeega iyo dadka ay ku nasan lahaayeen iyo maqaaxiyadii yaryar kulli waa ay furan yihiin inay howl gasho 2 sano iyo 6 bilood ka hor bay diyaar u ahayd ninka mashruuca hakiyay lacagtii 60 milyan ahayd oo ganacsatada aruurisay oo loogu talagalay mashruuca in lagu hormariyo ninka loonsaday Cabdiweli Gaas waay anaa markhaati ka ah dadkii kale oo markhaatiga ahaana waa joogaan haddii loo baahdo madaxda Puntland ruuxeedana waa ay ogyihiin dokumentigaas nin walba waxaan la wadaagayaa danaynaya inuu ogaado arrimihii Tuurdibi waxaan diyaar u ahay inaan la wadaago ismada Puntland nin walba oo ismada Puntland ka mid ah oo danaynaya dokumentiga inuu arko waxaan kaloo la wadaagayaa nin walba oo dowladda Puntland ka mid ah oo rabo nuqulkaas dokumentiga inuu arko waxaa kaloo dokumentigan uu yaalaa mid la mid ah dowladda dhexe ee federaalka ee Itoobiya wuxuu kaloo yaalaa xafiiska ganacsiga dowlad deegaanka Soomaalida wasiirkiisii ganacsiga Cabdiweli Cabdulle Xirsi inda guran waa xog ogaal wax walba waa uu ogyahay waa ninkii 6 jeer yimid Itoobiya oo lagu soo dhaweeyay Jigjiga 3 jeer oo ka mid ah aniga idinla hadlaya soo dhaweeyay haddii loo baahdo buruufkii waa keenaya waan idinla wadaagayaa Cabdiweli Gaas 6 jeer buu dowladda dhexe ee Itoobiya yimid mar walba wuxuu ku soo dhoofayay Puntland iyo Garowe uga soo tagayay customkii Tuurdibi arrimihiisii baan soo dhameynaya hoteelka ugu weyn ugu qaalisanna waa degayay meel ugu dhaqaaqayayna malaha arrimaha Tuurdibina daacad kama uusan ahayn ninka dibindaabiyey
oo rugtii ganacsiga wuxuu sameeyey way og tahay markii dambe isku dhacbaa yimid rugtii ganacsiga iyo asaga khilaafkii meel saruu gaaray wuxuu isku dayay ninkii inuu bedelo ganacsatadii waa ay shireen waana ogeen shirkoodii wixii ka soo baxay ayagana waa la weydiin karaayo maanta waa xog ogaal madaxda puntland ruuxeedana waa la weydiin karaayo waa xog ogaal shacabka puntland waxaan u sheegayaa isimada waxaan u sheegayaa war ninkaas horumarka puntland khatar buu ku yahay inta maalinkii wajaale somaliland ay ka hesho kastamka wajaale oo faa'iido ah in la eg ama laba jibaarkeeda baa tuurdibi laga heli lahaa